salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. kanaalkana daawaneysaan waa xakiim yare official. fadlan janaalka haddaad ku cusubta subscribe dheh, like, share si gaarsi asxaabta dunida daafaheeda kala joogto, furana gambaleelka si uu kuusoo gaaro muuqaal alla muuqaalka aa soo gelino oo aad u noqoto qofka ugu horeeyay ee daawada. waa sheekadeeni calaf iyo jaceyl. koleyta wixii markii u dambeysay noo maraysay gabadha hodan in xishood badan tahay, bal aan kusii socdo hadda mar kale iyo sheekadii calaf iyo jaceyl. waa markaan waalidkeed kusoo koriyeen waa hodane tababar tarabiyo wacan, taas oo dhalisay in ay noqoto gabadha had iyo jeeraale asturan oo waana hablaha dhifka ah ee ugu ixtiraamka badan jaamacadda. koox uu qadar ka mid yahay ayaa waxay abaabuleen oo in ardayda u baxaan dalxiis. sidaa darteed Professor aadan arintaas wuxuu ansixiyey, wuxuuna ka ogolaaday dalxiiska. abbaaro 5 subaxnimo ayaa qadar u kacay tabaabushaasi iyo isku diyaarinayo dalxiiska la magac baxay dalxiiskii caashiqa. waa koox dhalinyaro ah islamarkaana ku bahowday jaamacadda dhiganayeen, waxayna ka kooban yihiin 15 rag ah iyo 10 hablood. dalxiisku isfahan ayuu ku dhisan yahay iyo kooxda isi soo aruursatay loo soo diyaariyey, waxaana kooxda dalxiiska hogaaminayay Professor aadan iyo macalinka jaamacadda. dhammaan kooxda aad ayay ugu xiiseen dalxiiska, waxayna in badan ku sugayeen waqti la bixi doono. waqtiga oo ku beegnay 14 bisha 6 2005 waa maalin salaaso ah. qof kastana oo ka mid ahaa dalxiisayaas aroor hore ayuu isku diyaariyey, xiiso iyo xamaasad oo u hayay dalxiiskaasi. waxaana isna diyaar ahaa gaarigii ay raaci lahaayeen oo kala ahaa gaari langaruusal ah iyo bas. waqtiguna gudaha dhulku aad ayuu ugu roobeysan yahay. waa xilli gu ah, goobtuna dalxiis loo tagayo waana dhul bannaan ama lama degaan ah. sida meelaha dalxiiskaba inta badan lama degaan ay tahay, dadku u dalxiisaan taagan yihiin, waxayna caan ku tahay bad, buuro iyo dhulka cagaaran iyo dhul geeda leh. saacaddu marka maraysay 6 subaxnimo waxa uu qof kasta heegan ku ahaa kursiga gaariga. Professor aadan markaa hubsaday in ardayda dhan dhalinta ay diyaar ku yihiin, nin walba kursigiisa oo loogu talagalay. la soco, waa qaybtii labaad. waa xiisogelinta sheekada la magac baxday calaf iyo jaceyl. waa 6:15 subaxnimo ayay ka ambabaxeen magaaladii ay joogeen. dhammaan dalxiisayaasha waxay sitaan sahaydoodii ayay ugu faraxsan yihiin dalxiiska. inta jidka kusii jireen waxay gudaha baska ka bilaabatay hadallo kaftan ah oo dhammaan waa dhalinyaro. waxaa farxad u dheereed labiska quruxda badan ay xirnaayeen. muddo 3 saac ayay ku qaadatay inay goobta meesha u socdeen gaaraan. marka dhammaantood dhulka cagaha soo dhigeen, waxay indhaha la raaceen muuqaalka yaabka leh ee dhulka leeyahay iyo neecawda macaan ee ka dhaceyso. waa goor barqaac ah, jawiga aad ayuu u macaan yahay. Professor aadan wuxuu ardayda ku wargeliyey in ay fasax u yihiin bilowga dalxiiskooda, wuxuuna la soco qaybta 3. waa halka ka daawanaysa waa xakiim yar official. fadlan janaalka haddaad ku cusubta subscribe, like, share si gaarsiiya asxaabtaada dunida daafaheeda ku kala nool. mar walba waxaa jira dadna daawada ee subscribe-kana noo saareen. waxaan leenahay asxaabtiina waa in ku faraxsannahay daawashadiina kama xumin, laakiin subscribe-ka saara 40%. waxaa arkaysaa dadka inay ku daawadaan laakiin isa subscribe saarna. asxaabta waxaan leeyahay dhacdhac ku siiya waxa qarash minka baxay daawashada kala weey suulka meesha guduudan dhac ku siiya gambaleelka furo. intaas yar weey. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu.